waxaa maanta Hotel City Palace ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ka furmay shirweyne caalami ah oo lagu daafurayay barnaamij loogu magac daray horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer ee 5 sano ee soo socda waxaana ka soo qayb galay wafdi culus oo ka socotay xukuumadda Somaliland oo ay ka mid ahaayeen wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo barasaabada gobolada Togdheer, Daadmareer iyo Saraar. sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa hay'adaha caalamiga oo ka shaqeeya caafimaadka iyo marti-sharaf kale oo badan. ugu horeyn waxaa madashani ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland Dr. Xuseen Maxamed Maxamuud Xoog, waxaana uu mahad celiyay hay'adda UNICEF iyadoo qayb libaax leh ka qaadatay hirgelinta shirkani, isagoo carabaabay wasiirku inuu shirkani noqon doono mid caalami ah oo laga wada qabto gobolada dalka Somaliland. barasaabka gobolka Togdheer Yaasiin Maxamed Cabdi iyo duqa degmada Burco Master Maxamuud Axmed Xasan Dhagalaab ayaa iyaguna sheegay in maamul ahaan soo dhaweynayaan shirkani uguna baaqay bulshada gobolka Togdheer inay qayb libaax leh ka qaataan dhaqaajinta iyo hirgelinta mashruucani ka furmay magaalada Burco. Sidwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Cabdi Yaasiin Xaaji Saleebaan iyo sarkaal sare oo ka socday hay'adda UNICEF oo lagu magacaabo Aymar ayaa cadeeyeen haddii barnaamijkan hirgalo uu yahay mid muhiim ah. waxaa kale oo mas'uuliyiintu sheegeen in kulankani socon doono muddo 6 cisho. waxaan runtii wanaagin qiimo badan weey caafimaadka gobolkeena waa muddo nasiib u helay in la ugu bilaabo mashruuc aad u qaali ah oo lagu horumarinayo caafimaadka dalka. mashruucaas oo laga bilaabay gobolkeena Togdheer iyo gobolka Saaxil. ugu dambeyntii shirkani lagu magac daray horumarinta adeegyada caafimaadka ee 5 sano ee soo socda ayaa noqonaya kulankii ugu horeeyay ee noociisa ah ee lagu qabto magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Cabdirasaaq Faarax Cabdilaahi, shabakada caalamiga ah ee Burco Online, xarunta gobolka Togdheer, Burco.